Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan akhyaarta ku xidhan kanaalka Dayax Tag and Vlog soo dhawaada. Caawa waxaan idiin soo gudbinayaa sidaan u sameeyey muuqaalka intrada ah ee muuqaalkii u dambeeyay kusoo galay oo ay ah sawirkayga oo background dab ah ama holaci marayo. Markaas ugu horreyn programkan u baahanay waxa weeye applicationka la yiraahdo PicArt. Markaas 3 program baan u baahanahay marka mid walba la socodsiinay halkan marayo PicArt-ga halka plus ka yar baan taabanaya kor baan wadaya big canvas taasan tagaya waxaan dooranayaa size-ka iyo la ama 16 kan doonto waa caadi dhib badan male sida hore ugu soco sawirkeen soo qaadanaynaa halka hoos oo arkaysaan qaybta midigta sawirka labaad photo dooro sawirku markuu caadiga ahaa aan raadsado markuu caadiga waa ka sawirka saasaan ku soo qaadanaya on soo yar cabirka aan leekaysiisto inta markaan sameeyo horaan uga soconaya edit image baan tagaya toolskaasan tagaya qaybta labaad bidixda tools halka adjust waan ku sii dhufanayaa marka clarity-gaas ayaan ilaa ugu waxaan geynayaa 73 meelaha tigta saraan saaray mar labaad baan ku noqonayaa halkii clarity-gii baan haddana doorkan intii yar dhimayaa 60 waxba iska dheh deetana highlights-kaasaan ku sii dhufanayaa highlights-kaana waxaan geynayaa 100 mar labaad baan kaxaynayaa intaa markaan sameeyo tigtaay waan saarayaa doorkan waxaan aadayaa effects baan tagayaa effects markaan tago halkan waxaan ka dooranayaa black and white baan ka dooranayaa sidaasaan sawirka doonaya inaan ku save garaysto save my device-kayga saas markaan ku save gareeyo hadda waxaan u dhaqaaqayaa application-kii labaad oo background eraser-kaasan tagayaa in yar baan kusoo waxaan sameynayaa waxaan ka soo jarayaa hareeraha in yar ka soo geynayaa okay halkanaan imanayaa waxaan dooranayaa calaamadaas markaa waxaan ka goynayaa intaan sorry ilaa intaasan saa uga jarayaa dhinacan aadaya dhinacan saasaan uga soo jarayaa okay intaa markaan sameeyo intan dambe caadan isaga tirtiraya waan usoo noqon doonaa mar labaad bayn kusoo noqonaa application-kan oo aynu hawl kale ku qabsanaynaa laakiin intaa waxaan u banaynayaa hoose si aan qoraalkii u soo geliyo ayaan marka intaan usii banaynayaa sidan igu save garaa saasaan ugu save garaysmayaa waxaan aadayaa application-ka saddexaadan isticmaalayo oo ah Pixel Lab baan tagayaa Pixel Lab-ka markaan tago iska dhilad gareeka hadda doonto background-ka caadiga waxaan soo gelinayaa plus-ka xagga sare bidixdaad ku dhufanaysaa sawirkaygii baan tagayaa ayaan soo gelshanayaa from gallery waa kan sidaasaan ku soo geliyey halkaa markaan keeno waxaan tagayaa qaybta textiga oo xarafka eed u yaalla text baan leeyahay edit baan leeyahay intaa horaan iska masaxayaa waxaan dooranayaa kanaalka magaciisa Dayax Tag and Vlogs intaa markaan sameeyo farta halkaa waan ka bedeli karaa waaweyn baan ka dhigi karaa okay baan sii leeyahay fartaan halkan keenay sorry backle halkaa markaan marinayo waxaan xaggan u aadayaa midabka farta madow iiga dhig madow ii door waxaa dhacay ma doorin madow okay
waxa kale aan eegayaa stylekeeda noocay tahay baan tegayaa waxaan ka dhiganayaa taasaan ka dhiganayaa qofku tuu doono isagoo ka dhiganayaa hadhowna curve-kii baan sameynaya inaan qalloociyo minus baan xaggan u gelinayaa intaa markaan sameeyo waad aragtaa inay kala weyn yihiin hadhow waan soo habeyn karnaa haddaad doonto farta halkan qudheeda sizekeedaad ku noqon kartaa halkanaad kar kordhin kartaa intaasaan ka dhigayaa sidaana ku save garaysanayaa sawirkan xaggaa saran tegayaa save as image baan leeyahay sidaasaan ku save garaystay iminka waxaan dib ugu noqonayaa programkii raba ground eraserkii sawirkayga oo qoraal laban tegayaa halkaa iga bedel waxaan kani pixel labkeenu ka nimi waa kan kan doonaya hadaba inaan yara habeeyo hadda wixii iga saar wixii caddaana saas iga baxayaan wejigaygana ku dar intaas markaan sameeyo wixii muuqaale la arkay intaan kusii tirtirayaa halkaa kasii muuqanaya liidka sare sawirka dushiisa intaa kadib waan soo dhaweysanayaa si aan si fiican uga gogooyin sayidka okay meel qaldan baan marayaa waxay iska kay bedeleen maya intaa markaan sameyno weli waxay inoo hadhay inaynu halkan wax ka yar bedelaan labada meelood baynu isku mid ka dhigaynaa si ay isku mid inoo noqoto waa inaynu jarnaa intan intaa waa inaynu ka jarnaa sawirka halkaana isku yara siinaa halkaa qudheedu way yar kala duwan tahay inaan may ka yara intaa sidaa u yara gooyo weeye halkaana sii yara space baa halkaa ku jira spacekaana inaan ka saaro weeye waxaan usoo aadayaa markaa intan weli caddaan ku jiraa halkaa dibnaha caddaanka ka saar sanka isaga ka saar dhinaca kalena ka saar dib male waa markaad rabto inaad shayga qurxisato waad si fiican baad u hagaajisanaysaa inkastoo imkaan waxaan uga dan leeyahayun inaad idiin dul maro laakiin markaad doonayso wax qurux badan inaad samaysato waad hagaajisanaysaa waqti waad gashanaysaa wixii waqti la geliyinba dee wax fiicanna ka soo baxaan okay soo yaro zoom garee weli halkaa dhagahan ka saaro caddaankaa hareeraha waan samayn karaa laakiin ma rabo inaan isku mashquuliyo waxa weeye waa wax aan rabo inaan muuqaal idinku tuso waana huba haddaa isku daydaan kan mid ka qurux badanna sameynaysaan hore waan saan idinku sheegay muhiimaddu waa fikradda bes haddaad fikradda hayso waxaa iyo wax ka wanaagsan baad samayn kartaa halkaa garhku xitaa kala sii wuu yara jaray inta aan ku yara xado markaa qudheedoo yaro kala dheer tahay muhiimaddu intaasay weeye ka caddaan yar baa ku jira
cadaanka haddii aanad ka saarin wuxuu ka yar muuqanaya, muuqaalku kasoo dhex muuqanaya. Marka waa muhiim inaad intaa yar ka tuurtaa. oo dibna celi halkaa liidka meelaa ka saarin awal. intaa markaynu sameyno waxaynu noqonaa xarfaha intaa ku dhex jirta qudheeda cadaanka. liida cadaanka ka saar, eeda ka saar, haddii halkaa wax qalad ay ku jiraan waad rebeer garaysan kartaa, waxba kuma jiraan marka uma baahnid. rebeerta faa'iidadeedu waa intaa shayga aad waqti hore qabatay ayaad dib u habeynaysaa. muuqaalka waxaad moodaa kii hore aan sameeyey kan inay yaro kala weyn yihiin. yeelka waa muhiimaddu waa inaad filinka fahantay. okay, saasaan ku save garaynayaa kan. backgroundkan eego inay wax ka bedelayiin. halkaa sare liid yar baa ku jira, dib ii celi. halkaa liid baa ku yaro jira inaa arkaysaan mooye. marka marba labada background kala bedeshaad arkaysaa. liidkaana iga tirtir. hadda wax liidoo meel kaga jira ma jiraan. saa igu save garaa. aan soo dhaweeyo bal muuqaalka liidka liidka madowgeemaya. kaa kama dhigayo. wankaasaa lagu qaatay. sidaa igu save garee. saa markaan ku save garayo waynu dhamaynay sawirka, waynu diyaarinay. programka saddexaad baynu aadaynaa waa KineMaster applicationkaas. waa application cajiiba runtii. waxa weeye multi layers badan buu leeyahay. waxaan dooranayaa 16:9kaas. waxaan soo gelinayaa background baan doonayaa inaan samaysto. laba siyood baan samayn karaa. tan toos waxaan iman karaa inaan dabkii oo YouTube kala soo degi kartaa isaga qudhiisa, dhib badan male. kadibna layerkanaan imanayaa, mediahaasaan kusii dhufanayaa. sawirkan imanka soo habeeyey qaybta eraser ku yaala isagaan soo dhiganayaa. markaadina xagga aarooga hore geeyahayd deeqsii. okay, sawirku soo yar dhowey haddaba. sidaa kusii daabalayna tijaabino. weli cadaan baa ku jira soo ma aragtaan. cadaan hadda uu sii muuqda cadaanku intaanu holacu soo gaadhin. wax kala maaha waa liidadkii. halkan waana kula waqti badan maan gelin saan uu sii nadiifiyo, laakiin hadda waad moodaa inuu isu soo leeyahay. haddaad doonto waxa weeye mayaan soo yar dhowaya kan. asxaabay waa ila aragtaan baan malinayaa. sawirku toos buu u muuqdaa soo ma aragtaan. waa hareeraha aana si fiican uga soo goynin. dib male, fikraddu waa taa. halkana music baad ama music yar baad ku sii deynaysaa. wax dhib badan maaha runtii. wax markii waad kala tuuri kartaa. haddaad mar iyo laba ku yar daydo waa wax hagaagaya. bal aynu tijaabino. qoraalka halkaagee yara koob. waa aragtaan muhiimaddu intaasay ahayd. deetana halkan sheertaasaad taabanaysaa. waxaad ka dhiganaysaa muuqaalka cabirkaa doontaad ka dhiganaysaa. saasaad import ku leedahay. muuqaalkaagii sidaas ayuu kuugu diyaarsan yahay ood ku isticmaali kartaa.
asxaabay fikradu intaas